kulan wacan wanaagsan mana khiyaarta hawada nagala xiriirtaay waxaad kusoo dhawaatay qodobadaan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona Manchester United mise Liverpool Kulojio Khalidu Koulibaly oo doorta kooxda uu ku biirayo waxaan kaloo eegi doonaa xiriirka ama maxkamadda kubadda cagta adduunka oo sheegtay xilliga ay soo bandhigayso racfaanka kooxda Manchester City waxaan kaloo eegi doonaa wararka la xiriira xidigaha ugu caansan adduunka waxaan kaloo eegi doonaa 20ka weeraryahan ee ugu dhameystira fiican goolasha oo la soo saaray waxaan eegi doonaa liiska 10ka xidig ee xilli ciyaareedkan u qalma ama ugu qiimeynta horeeya ee sanadka 2020ka sababtay Man United ugu dhiiranayso inay dhameystirto saxiixa Sancho oo la ogaaday waxaan kaloo eegi doonaa Thomas Farley oo ka shafay sidii uu ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Manchester United Robby van Persie waxaan eegi doonaa warbixinta saddexda xidig ee Liverpool ay seegi doontaa kulanka Everton oo la shaaciyay waxaan kaloo soo qaadan doonaa Chelsea oo doonaysa inay dhameystirto saxiixa Timo Werner qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso sheekooyinka kaleete haddii aynu eegno maanta aadka loo hadalhayo ciyaaraha qaaradda Yurub ayaa waxay tahay Khalidu Koulibaly ayaa la leeyahay waxaa lagu talinayaa kooxda uu ku biiri lahaa daafaca kooxda Napoli ee Khalidu Koulibaly ayaa loo sheegay inuu ku biiro kooxda Manchester United kuna biiro kooxda Liverpool midkood daafaca dhexe kooxda Napoli Khalidu Koulibaly ayaa bartilmaameed u ahaa kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub waxaana jiray kooxahaas oo si aad ah u doonayay xidiga reer Senegal ayaa la rumaysan yahay inuu bartilmaameed u yahay kooxda Manchester United kuwaasi oo isku doonaya inay ku soo daraan liiska xidigaha kooxda Manchester United Harry Mendy halka ay Liverpool sidoo kaleente ay doonayso saxiixa xidigaasi Man United ayaa waqti hore loo dabaaldegay inay xidigaasi ka bixin doonto 71 milyan oo ganiga sterlinka laakiin waa ay ku guuldareysatay talaabada ayaa ka dhigaysa daafaca hore ee kooxda Chelsea iyo xulka qaranka Faransa ee Loftus in uu ka dhawaajiyo inuu ku biiro Khalidu Koulibaly ku biiro kooxda Liverpool haddii uu doonayo inuu ka tago kooxda kubadda cagta Napoli wararka ayaa sheegay in Khalidu Koulibaly lagu qalqaalinayo inuu ka mid noqdo xidigaha uu ku shartago macallin Jurgen Klopp kaasi oo inta badan soo xusha shax aan inaba macquul ahayn haddii aynu eegno warbixinada kaleente maanta aadka loo hadalheeyo ayaa waxaa ka mid ah ayaan eegi doonaa warbixinada kaleente maanta aadka loo hadalhaya xiriirka kubadda cagta adduunka ayaa sheegaya inay ka soo saari doonaan sharciga ganaaxa iyo racfaanka kooxda Manchester City xogahayaha guud ee madaxda maxkamadda kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyay cases ayaa sheegaya in ay sheegeen maxkamadda go'aanka ugu dambeynta ah ee racfaanka Manchester City ee Champions League soo saari doonaan bisha dambe UEFA ayaa ganaaxa dusha ka saartay kooxda Manchester City oo ay ku maqoonisay in ay jabisay 2 shardi oo ah inay ku dhacday dhaqan ahaanba laakiin waxaa la sheegayaa in ay Manchester City doonayso inay racfaan ka qaadato ayna soo saari doonaan ganaaxa bisha dambe iyo racfaanka ay qaadan doonto haddii aynu eegno warbixinada kaleeto waxaa ka mid ah kooxda Manchester United ayaa doonaysa saxiixa Sancho ka dib markii ay doonaysa inay la soo saxiixato ayaa la leeyahay xidiga kooxda Borussia Dortmund oo ah xidig soo bandhiga qaab ciyaareed aad tajaayib u ah ayay Man United ku doonaysaa inay ku bixiso adduun lacag oo gaaraya 100 milyan oo euro waxaana la soo sheegayaa in laakiin
Stegen ay sheegeen in ay aaminsan yihiin in ay asagana sidoo kale ay doonayaan. Manchester United ayaa xagaagan doonaysa inay Sancho la soo wareegto iyadoo way sidoo kaleentay aad u baadigoobanaa inay saxiixa xidiga ay dhammaystiraan. kabtankii hore kooxda Arsenal Thomas Parella ayaa qirtay in uu la yaaban yahay markii uu Robin van Persie kaga tagay Arsenal kuna biiray kooxda Manchester United. Robin van Persie ayaa asaga ka tagay Arsenal asaga oo ku biiray kooxda Manchester United sanadkii 2012 isaga oo kula guuleystay Premier League xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee uu halkaasi yimaaday. Arsenal ayaa la leeyahay wargeyska ayaa soo bandhigay qaab ciyaareedkii soo bandhigay xidigaasi isaga oo xidigaasi 96 gool u dhaliyay kooxda Gunners ee Arsenal 194 kulan uu u saftay. daaficii hore kooxda Arsenal Varane ayaa sheegaya in uu xidigaasi xidiga ugu wanaagsan uu u jeclaa kooxda Arsenal. haddii aynu eegno 3 xidig oo la filayo inay ku biiraan kooxo kala duwan ayaa leeyahay kooxaha Premier League ayaa xaqiijiyay kooxaha Premier League ayaa xagaaga dambe lacag badan ka soo bixin doona xidigaha kuwaasi oo ay doonayaan marka la gaaro xagaaga dambe kooxda inta ku guda jirto xil ciyaareedkan. laakiin waxaa la leeyahay qaar ka mid ah xidigaha ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan suurtagalna ah in ay ka tagaan kooxahooda. wararka ayaa sheegaya in xidigahaasi lala xiriirinay kooxo kala duwan. xidiga kooxda kubadda cagta Nicolas Pepe ayaa la leeyahay xidiga Nicolas Pepe ayaa ah xidiga ugu fiican horyaalka Ligue 1 kadib markii ay Arsenal xagaagii hore u jeedisay in ay soo qaadato guulaha ama xidigan ayay Digaralis ku doonaysay 72 milyan oo euro ah inay ka soo bixiso xagaagii hore laakiin kuma aysan guuleysan. Nicolas Pepe ayay ku guuleysataan iraada 72 milyan inay ka soo bixiso. Nicolas Pepe ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed lagu sugaynin asaga oo qaab ciyaareed kale soo bandhigay. waxaan leeyahay in xidigaasi uu ahaa xidig ay bartilmaameed ka dhiganaysa Arsenal ayna soo qaadatay. si kastaba ha ahaatee wargeyska ayaa sheegaya inuu Nicolas Pepe ka duganaan doono sida ay haatan xilli ciyaareedka dambe mar kale u doonaysay inay Arsenal u ciyaarto. xidiga reer Faransa ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan waxaana doonaysa kooxda Tottenham laakiin kuma aysan guuleysan. waxaana la sheegayaa in kooxda Arsenal ay xidigaasi ka soo bixisay adduun lacageed oo aad u badan iyada oo aan ku guuleysan in adduunkaasi lacageed uu qaab ciyaareed wanaagsan uu ku soo bandhigo. maalmihii ugu dambeeyay waxaa la soo warinayay warar kala duwan ee sheegaya in xidiga reer England ee Timo Werner uu ku biirayo kooxaha kala duwan. xidigan oo ciyaara RB Leipzig ee Timo Werner kaasi oo la sheegaya inuu ka dugan yahay xidigaha kaleente iyadoo ay doonayaan kooxo kala duwan. laacibkan ayaa la hadalhaya inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta Chelsea laakiin waxaa la sheegaya agaasimaha guud ee kooxda RB Leipzig inuu beeniyay in xidiga uu ku biiri doono kooxaha Premier League. haddii aynu eegno xidiga khadka dhexe Man United xidiga khadka dhexe Juventus ee Mario Pjanic ayaa waxaa doonaysa kooxda Manchester United kaasi oo u aragta in xidigaasi ay la soo saxiixato. xidigan ayaa kooxda Man United ay doonaysa waxaa ku soo biirtay kooxda Blues oo doonaysa in ay iyadana la soo saxiixato. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xagaaga soo bandhigaysa bartilmaameed aad u waaweyn oo ay ku doonaysa inay la soo saxiixato xidigaha kooxaha kaleete.
sheekooyinka kale haddii aynu eegno tababare Zinedine Zidane ayaa kooxdiisa usoo bandhigay u diyaarinta biloobashada horyaalka La Liga dalkaasi Spain asaga oo Zidane doonayo in uu xidigaha Lucas Vazquez iyo sidoo kale xidiga kale oo kooxdiisa uu isbedel uu ku sameeyo laakiin xidiga lagu magacaabo Nico Varane ayaa asagana la sheegayaa in uu doonayo inuu ku soo daro shafka koowaad ee kooxda Real Madrid tababaraha reer Faransa ee Zinedine Zidane ayaa inta badan soo bandhigay xidiga da'yar ah kuwaas oo ka faa'iideysta khibradda iyo qaab ciyaareedka wanaagsan ee macallin Zinedine Zidane halyeegii hore kooxda Arsenal Mason Lowe ayaa sheegay in uu filayo in Arsenal u soo bixi doonto Champions League xilli ciyaareedka dambe kuna dhameysan doonto 4 boos ee ugu sareyso xilli ciyaareedkan marka kadibna loo soo bixi doona Champions League. Gunners ayaa hatan ku jirta kaalinta 9aad iyadoo 8 dhibcood ka dambeysa kooxda kaalinta 4aad ee Chelsea iyo waxaana la sheegayaa in kooxda Arsenal ay toddobaadka dambe la ciyaari doonto kooxda Manchester City kulan ka tirsan horyaalka kulanka baaqiga ah waxaana la sheegayaa in ay kulan baaqi ah toddobaadka dambe Arsenal la ciyaari doonto naadiga Manchester City kaasi oo noqon doona kulan derby ah. Michael Marlow ayaa sheegaya in weligiis ay arkin Arsenal oo 3 sano xiriir ah ka hiraysa Champions League wuxuu sidoo kale aaminsan yahay in naadiga Arsenal ay u soo bixi doonto booska loogu soo baxo Champions League. Dani Ceballos ayaa sharjibiyay ama ka hadlay kooxda Arsenal.